aad baan idiin salaamaya meel kastoo joogtaan soo dhawaada. eje waa run weeyaan, waa run weeyaan. waxyaalo badan baan idiin hayaa soo gala. soo dhawaada insha allah, soo dhawaada. asxaabtayda reer snapchat waxaan live ka ahay facebook, waa ku jiraa haddeer, waa kaawaad aragtaan. facebook ayaan live ka ahay, marka insha allah waxaan rabaa waa kuma ninka kufsaday gabadha yar ee uu hooyadeed qabo magaalada Minneapolis suuqa karameel agtiisa. yaa taageeraya arrinta, maxaa ka jira? ma dhacan arrimaha noocaana ma ka dhacan soomaalida dhexdeeda? yes or not? yes. waxaasoo dhan waxaan rabaa inaan hadda idinla wadaago, ninka sawirkiisa idiin soo bandhigo, wax walbana aan farta idinka saaro insha allah. dulmikana waa igu taqaanaa, nin dulmi taageera ma ihi, nin edab darro iyo qashnimo iyo qaato waxaas ma ihi. marka hooyadaas Soomaaliyeed rag ganacsato ah oo magaalada laga yaqaano oo ninkaa dulmiga ku taageerayay, iyaga laftooda maanta banaanka la keenayaa. marka insha allah soo gala facebookgayga, hadhowna wixii faahfaahina reer snapchat halkan ayaan kala wadaagi doonaa insha allah biidnillahi kariim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي soo dhawaada asxaabta qaariga ah, soo dhawaada insha allah. barnaamijka mar dhow baan bilaabayaa, waxaan bilaabayaa 5 daqiiqo kadib 5 daqiiqo kadib 5 daqiiqo kadib baan bilaabayaa insha allah. iyo soo dhawaada. soo dhawaada insha allah. waxaan sii diyaarsanayaa kufsadaha sawirkiisii, xaaje kufsade ayaan rabaa inaan idinla wadaago insha allah. اوكي waa diyaarsaday master xaajo kufsade. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انت مقعي موقعي بالتقانبة شعبك الصوماليات مالك السجوكتان وولالكين عبد الحكيم عثمان نور ولو يقانو شيخ صومالي حيرتا شيخة مينيابوليس مينيسودا. انت النعب ايه، انت الجعل، انت التاغيرسن ايه، انت يقصو هرجيدا. لما شعبك الصوماليات مالك السجوغان وحنكو سلام يا سلامة الإسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انت waxaa lagu jira maalintii cashuura. gabi ahaan ummadda muslimiinta marka loo qaybiyo 3 meelood 2 meelood waa sooman yihiin, oo aanu ka mid ahay. ilaahay soonkeena haynaga aqbalo, salaada iyo sadaqada iyo sakadana allah haynaga aqbalo. qof kasta muraad ku leeyahay allah u sahlo. ummadda Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad mar walba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idin leeyahay ilaahay dhammaantiin ha idin wada xafido. muxuu ku saabsan yahay barnaamijkaygaan maanta? barnaamijkaygaan maanta waxa uu ku saabsan yahay, sida aad ka aragteen baraha bulshada, waxaa soo gashay hooyo Soomaaliyeed xijaaban, asturan, qurux iyo shacni iyo wanaag uu ka muuqdo, soo bandhigtay dhibaato ku dhacday. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحال سoo qoray oo la ii soo qoray in walaashay my best friend hodan cabdiraxmaan dheere oo dhintay aabaheed إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت إلهي نحريستي جنها كورابيو أبتغي عبد الرحمن ديرة إلهي جنة الفردوس كورابيو إن شاء الله برنامج بان كديارنا يا وانا سوق لي دونا مركله ولا شيء هذا عبد الرحمن وحن لقيب سنة يا مروجدة آد بان وبحوم هاي إلهي جنة الفردوس كورابيو تعصيد أسماء كقيب قانون دونا أوكي أنت كبعد الله ونحريسته أبتغي عبد الرحمن ديرة جنة الفردوس الله كورابيو waxaa baraha bulshada soo gashay hooyo Soomaaliyeed oo xijaaban soo bandhigtay sheegtay ummadda u sheegtay arrin ku dhacda arrintaas oo arrin musiibo ah hooyada Soomaaliyeed waxay degan tahay gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis markii aan baraha bulshada ku arkay anigu sideedaba waxaan ahay dadka riboodka iyo waxaas barbaara meelaha dawladda gala sida wax ku dhaceen iyo waxaas wixii dhan waa public access baad aad u leedahay hadii aad daba gasho waad heli kartaa waxaan isku taxalluujiyay ilaa maanta aan idin 7 bari ii qabta laakiin horu dhac wixiiba waxay noqdeen dad aan garanayo oo saas aan isku nahay documentigii iyo hawlihii oo dhan baan soo arkay arrimo badan oo experience aan khibrad u leeyahay inta aqli leh ee Mareykan joogtana waa marka aadan isdhagatiraynin Soomaalidu markay isdhagatirayaan ay runta indhaha iska saar yani rabaan inay been sheegaan qofka runtii ka aamusiyaan waxyaalo badan bay soo dhigaan meelahan laakiin maanta waxaan idin tusayaa oo xaqiiqada idin sheegaya Soomaaliyeed in ilmaha yariska ee Mareykan jooga ilmaha yar ee Mareykan jooga hooyadiis si kastay ugu akhrido saas iyo saas iyo saas iyo saas iyo saas iyo saas oo si kasta ugu qafisho wallahi oo billahi oo talay soo beeru sheekay ilma 8 jir oo Mareykan ku dhashay oo Mareykan ku barbaaray hooyadii haday wax walba ku akhrido marka hay'adaha dawladda iyo dadka carruurta ku shaqada leh jaamacadaha uga baxay baaritaanka ay yimaadaan ilmahaas yari been ma sheegi karo taa horta Soomaaliyeed ku seexda kuna soo toosa dadka Afrika ka soo qayriya iyo dadka runta iska indhatira ee meelahan joogo mid maanta iga qoran waxba excuse ha sameynina ilma 8 sano jira oo Mareykan ku dhashay Minnesota ku dhashay ayaa hooyadiis intay been ku akhrido tiraahdo saas ilaahu ma 3 sano ku akhrido marka ay u yimaadaan dadka ku shuqul departmentka ku shuqul baaritaanka caruuraha marka la wareysanayo hal maalin kaliya lama wareysanayo waryaale aqligiina ka fakara oo daawada barnaamijyada baaritaanka waxa ilmahan wareysanaya 20 qof oo midba u imanayo wiigooniya sidee ilmaha 8 jirka ah wixii hooyadii 2 bilood ka hor ku tiri uu ku qaabilaya oo yaani ku xusuusanaya waxa uu ilmahaasi sheego 8 jirka maalinta ugu horeysa waxa uu sheego 98% waa run been ma sheego ilma Mareykan ku dhasho 8 jira qofka Soomaaliga ee yiraahdo been buu sheegaa waa been Muqtaar abdu waa soo wada hadagdag waa been horta taa waa idinka jaahil bixinaya inkastoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala qowlkiisii qowlka quraanki Allah qaarkiin Soomaali ay ku qanci waayeen oo ay muran ka keeneen soo fariisteen haddana maanta waxaan meesha idinka saarayaa ilma 8 sano jira hooyadii beenay ku akhriday hay'adaha baaritaanka carruurta ku shaqada ee dawladda ma u sheegi kara waa maya haddaba say wax ku dhacay hooyadan waxay degan tahay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dalka Mareykanka Soomaalidu waxa ay jecel yihiin inay ogaadaan qabiilka si aan ana iskaga kiin bari yeelo oo idaan u oranin Cabdixakiin
oydan oranin cabdixakiin gabadhu la qabiilahaa ama ninkuu la qabiilahaayo ninnimo ku difaacaya ama gabadhu ku difaacaya waxaa waajibi waa ilaan anoo og boogta idin xanuunaysa ee Soomaaliyeed anigoo og waa inaan idin sheego qabiilka aan ahay intiina ay garanaysaa waa ay garanaysaa iyo labada qof ee arrintu dhex martay qabiilka yihiin anigu qabiilkaan ahay waad wada garanaysaa nin daarooda oo kabla laha oo hartiya oo dhulbahantaa oo maxamuud garaado jaamac siyaada oo habaryo isaaq dhaleen habaryoonis dhashay garxajis dhalay habaryoonis reer caynaashay xiris cusban sugula caynaashay ayaan horta waa inaad ogaataan weeyaan waa inaad fahansiiyo inaydaan oray gabadhiba isku qabiil yihiin ama wiilkiiba isku qabiil yihiin labada qof ee ay wax dhex mareen wiilka iyo gabadhu waa qolama wiilku waa qabiilka la yiraahdo tunni gabadhuna waa gabadh qabiilka la yiraahdo dir horta halkaas inoo kala baandheeya si aydan shaambadii igu dhufan aydan u oranin ninkii cabdixakiin ahaa qabiil hebel buu ahaayo gabadha ama wiilka saas ku difaacaya midna isku qabiil maniye gabadhuna waa dir wiilkuna waa tunni gabadhu ilmaha yar ee jirka nin kale u dhashay waxa ay degan tahay magaalada Minneapolis suuqa Karame agtiisa ay degan tahay ninkan sideeda mid kale ogaada Soomaaliya mid kale ogaada haddii hadda boolis la waco oo boolisku ku yimaadaan jaabadka markaa dhacso ma lagu xidhay xuquuq baad leedahay nin ahaw naag ahaw disable ahaw qof caadi ahaw waxa doonto ahaw booliska laftoodu waxay diidayaan in la suud gareeyo oo la yiraahdo qofkan sharaftiisii iyo dignitigiisii ayaad meel uga dhacday wadankan sharci buu qortay waa la kala baqaa qof aan baqin ma jirto hay'adaha dawladdu dadka ka baqaan dadkuna hay'adaha dawladda ka baqaan hay'adaha dawladdu dadka ka baqaan waxay ka baqaan in la suud gareeyo dadkuna dawladda ka baqaan waxay ka baqaan in sharciga lagu qaado taas horta ogaada ninku gabadha yar ee jirka ma fuulay oo wax ma galiyo muxuu ku sameeyay siyaasa arrintu u dhacday horta alxamdulillahi rabbil caalamiin اوكي الحمد لله رب العالمين gabadha yar hoosta hoose waxba kama qabto ilaahay oo badbaadiye muxuu ku sameeyay ninkani waxa uu ku sameeyay gabadha yar waxa uu shiday film boona 8 sano ayay jirtaa hooyadeeduna qaba waxa uu la soo baxay xubintiisa taranka waxa uu sameeyay siigaysi waxa uu shahwadiisa ku shubay gacanteeda laakiin xubintiisa taranka muusan qaadin oo gabadha yar ayduusan gelin waa sida report ku qoran waa sida reportka ku qoran dawladdu ma iska xidhataa oo ma la taxaabaya su'aashaas waa inaynu isweydiino maya haddii kun hooyo inta isku tagaan ay damcaan inay niman been ka sheegaan oo yiraahdaan ilmaha iyagu fuula dawladdu intay qabato ma taxaabaso waxa xabsiga la geeyay markii ay ciidanka booliska ay cadayntii ay heleen muddo intee leeg ayuu gabadha hawshan ku waday gabadhu meeqa sano ay jirtay gabadhu 8 sano ay jirtay sida hooyadeed ay sheegtay reportkana ku qoran gabadhu yaa u sheegtay walaasheed weyn bay la wadaagtay dhibaatada ku dhacday hooyo oo aaba bay tiri sidii maamadu idin sheegtay waa tan aad wada arkaseen waa wada daawateen macna badan ma sameeyay inaan hadda idin shubo walaasheed weyn ayay la wadaagtay muddo intee leeg ayuu ku sameeyay hawshan uu ku waday ninkan reerku ma dagana house waxa ay degan yihiin apartment waxayna degan yihiin suuqa Karmeel guriga ku soo jeeda si aan ku arkay reportka
dhakhtarku waxay caddeeyeen in gabadha hoosteeda aanay gelin waxaba yaraata xubinta taranka ee raggu ayna gelin baaritaan badan oo la sameeyey oo gabadha la waraystay ilmaha 8 jirka ee Mareykanku Soomaali maryoolay dhagihiina furta indhihiina isoo fiiriya ilma Mareykan ku dhashay haddii caawo dhan ay hooyadiis ku akhrinayso 5 bilood markay u yimaadaan dad baa jaamacad uga soo baxo 8 sano u qalin jabiyay inay ilmaha kareemka arrimahan kala waraystaan ilmaha Mareykan ku dhashay 8 jirkii been ma sheego halka timamiya ku aragtaan ilma 8 jir ayaa hooyadii ka soo dhaadhicinaysa idinku isku sheekeeya aniga ma iigu sheekeynaysa hal mar haduu sheego laba officer sheego saddex baartaan sheego waa la kaxaysanaya meel ciyaalka la tagaya waxbay ku daldalayaan cuntay siinayaan nacnacay siinayaan vacationay geeyeen waa la qaadaya qaarkood gobolada la geeynayaa ilmaha waxay buu sheegaya ninku gabadha yar ma fuuli laakiin nacnac buu siinayay lacag buu siinayay game buu lahaa kula ciyaar film boonu u shiday see ilma yar waryaara ilma yar oo 8 sano jira waa isfuulayo ii daaray iyo gaalada u sheegtay telefoonkiisu uga geey ma ogtihi telefoonka uu watay boolisku inay ka qaadayaan oo la eegayo intii meeleed oo Google gareeyay filmaanta boonada hadduu daawado waa la soo saaraya iska qabso meeshan adeer iska soo qabso qajam iska sii mashaqayso runta in laga wada hadlo ama maanta ama igu jeclaada arrimo noocan oo badan way ka dhaceen magaalada Minneapolis xaafadda Eden Prairie bay ka dhaceen hooyooyin Soomaaliyeed baa qarsaday wixii ilmahooda ninkooda ku sameeyay waxay u qarsanayeen in aysan yiraahdaan cadowban isku jabina Snapchat bay soo galayeen qaarkood iyadoo gabadheedii uu fareeyay oo uu dilay iyagoo dhahaya halkan ay ka shidan tahay Eden Prairie bay ka dhacday dad magac leh oo community Soomaaliyeed lagu yaqaan sameeyay hooyadan Soomaaliyeed anigu maanta waxaan u arkaa Cabdixakiin ahaan inay tahay hooyo geesiyada bilad ayaan siinayaa hooyo go'aan adag hooyo mustaqbalka ilmaheeda ka fakartay ee aan ka fakarin mustaqbalka dayuuskan harima cadka ah waxashka ah dameerka ah ee guriga ku soo xareysatay hooyadaas anigu waxaan leeyahay Ilaahay ku barakeeyo murugada qalbigaaga haysatana Allah ka dulqaado sababtoo ah waxaan u qiray inay tahay hooyo geesiyada shacabka Soomaaliyeed bishii Ramadaan waxa wadanka Mareykanka ka dhacay magaalada Kansas ka dhacday in qoys family dhari baabao dhulka ay galaan muxuu u baabay family-gaas wuxuu u baabay dulmi noocaan oo kala oo dhacay adeerkii hooyadii la dhashay ayaa wiilkii yaraa labadii gabdhihii walaaladiis tiiray fuulay iyagoo agoona markay sheegeen waa la qariyay markii la qariyay maamadii ay sheegtay culmadii u tagtay dadkii ay ka dhalatay uu ka dhashay u tagtayna waxa la yiri been bay sheegaysaa daaqadu ka soo dhacay dad buu soo kaxayso islaantii buu dilay wiilkii weynaa ee curadka ahaa ee reerku dhaleen muddo ayuu dhibkiisa u sheegay community-ga Soomaaliyeed ee Kansas waxa uu sheegay masaajidka waxa uu sheegay ehelkiisa ragii business-ka lahaa ee tolkiisa ka hor yimi culimadii masaajidka ka hor timi community-gii baan caawinin waxa la yiri waa waalan yahay labadii yaraa ee marxuumadii dhashay ee la siiqaadkii ay u dhashay ayaa la yiri waa xaafida quraan oo quraankii xafiday oo la kolkoliyay family-giisii baa dulmiyay family-giisii ayaa dulmiyay walaaladiisii yaraa dilaya dulmiyay adeeradiisa dulmiyay culimo awdiinkii baa dulmiyay eedooyinkiisa dulmiyay isagii baa la takoora waxa uu gaaray intuu soo baxo inuu gobolka Minnesota yimaado xayalaha aan soo ogaaday hadda Soomaaliya maanta ogtii dayaha qabsan lahayd gobolka Minnesota ayuu yimi wiilkii wuu shaqaystay
buu iibsaday shootigu soo barta bayjeeg buu soo qaadanaya waxaasoo dhan wuxuu u sameynayay inuu hooyadiis allaha u naxariistee ninkii dilay ee adeerkii aabihii la dhashay walaashiisa yarna kufsaday inuu dilo oo reerka oo dhan xasuuqa maca eedooyinka Minnesota uu yimi shaquu tagay bas buu raaci jiray baabuur buu iibsaday qori buu iibsaday shootinkii uu bartay waa isdiyaariyey isagoo wixiisu wadu Kansas ku noqday labadii wiil buu dilay walaaladii eedadiisii korisay wiilasha inuu dilo rabay booliskii baa siri qabo isagiina waa dilay mashaqada intaas leeg ee family-gaas dhani ku baaba'ay Soomaaliya maxaa keenay maxaa koosgareeyay waxaa koosgareeyay dulmi la qarinayay dulmi loo geysanayay war culimadii masaajidka waxay dhaheen cunugani alkalu bartay waligiis khamrina macabin alkalana macabin historigiisa markaan eegay waligiis laguma qabanin wax karayma jas wiilal bay mas dagaaleen min dibu galiye December daraagis baan lagu qabanin iyo ay baan lagu qabanin wax kale lagu qabanin dulmigii ay dulmiyeen culimadii baa waxay yiri balwad buu leeyahay wiilashana xaafid quraan wiilashana masaajidka tujiya isagii baa waxa lagu sameeyay dhibaatadii cunugaas ku dhacday waa dhibaato qof kasto Soomaaliyeed oo damiir leh uu ka damqanayo wixii aad aragteen bay dhashay waxay dhashay inuu labadii walaaladii dilo inuu eedadii isku dayo inuu dilo inuu kuwii kala laayo aakhirkii in booliska isaga ay dileen waxay dhashay in saddex wiil oo walaal ah oo da'di 20 ku jira isku maalin saddex xabaalood isku adxiga la kala dhigo hooyadoodna dhinaca ay ugu jirtay masiibo ka weyn oo dhacday oo Soomaali community ku dhacday ma garanaysa hooyadan Soomaaliyeed ee Minnesota iyadoo joogta arrinta ku dhacday masiibo ku dhacday laakiin anigu waxaan siinayaa kiriinid ah hooyo Soomaaliyeed oo damiirkeedu nool yahay geesiyada inay tahay maysan qarsanin waryaa Minnesota waxa ka dhaca family ahaan annaga dhubanta ahaan Ahmed Garan ninka la yiraahdo gabadha xaaskiisu dhashay ayuu farafareeyay oo wallahi oo billahi oo tallahi oo gacan saaray ina Xasan Shariif baa la yiraahdaa maxaa been isku sheegaya bartana soo galo walaaladeed way ku kala dhinteen ma wada hadlaan ubax walaaladeed magaalada joogaan waa ku kala dhinteen ma wada hadlaan every single minute Snapchat bay ku jirtaa my husband Ahmed jay iska tiirinaysa waxa isleedahay dadka banaanka jooga Snapchat kan bay u nool yihiin dumarka Soomaaliyeed Snapchat kan baas ayay u nool yihiin dumarka Soomaaliyeed jay iska tiirinaysa dadka banaanka jooga ay leedahay heblaaye ay ugu qosliyo iyo cadowa isagii bay guriga ku haystaa vacation to vacation hotel to hotel state to state my husband wuu sameeyay arrinta gabadha ayaa dhalay Xasan Shariif oo magaalada Minneapolis laga yaqaano ayaa dhalay abtiyaasheeday la hadashay oo ganacsi magaalada ku leh waa kuwan magaalada joogaan salaam alaykum isma dhahan abtiyaasheed ubax iyo walaaladeed salaam alaykum isma yiraahdaan waa ku kala dhinteen waa ku kala dhaqaaqeen ninkii guriga buu jiifaa waxay gaadhay in wiilkeedii ay guriga ka cayriso bartanaan soo galay oo bulshada Soomaaliyeed anoon qabiil eegeen anoon Maxamuud Karaadnimo dhulbaantinimo eegeen baa la wadaag waa la dambe bas Snapchat kan gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed boqolkiiba 98 waxa ay sameeyaan taa ku aragtay Snapchat ka inay ku badan tahay oo ay leedahay halkan ay ka shidan tahay maanta halkan ay ahayd ha aamini dabba gurigeeda ka baxaya ilmaheedii baa dhiban iyadii buu dulmiye iyadii baa wax la doon lagu sameeyay markii aan soo galay aan bulshada Soomaaliyeed la wadaagay waxa uu sameeyay Ahmed Garan oo gabadhii Xasan Shariif oo magaalada laga wada garanay Ehludiin aha Ahmed Garan oo ciyaarkiisa ka soo dhaqaaqay uu ku sameeyay ee aan ummadda u sheegay oo Snapchat bay soo gashay waxay tiri waa my husband my lovely husband waa kan comment bay hoos uga soo qoreen qaar iyadoo kala ah waxay yiraahdeen keep going beautiful family ababa waa been weeyaan wax ka sokeeya ma jirto
دبا بحوية دبا سأبحية how many Somaliyeed hooya ayaa ninkii qabay intuu gabadheeda faraxumeeyay istiri ha isku jabin naagaha banaanka ee aamuso afka liira saaro snapchat waxa tira halkan ay ka shidanta ninkiina guriga ku haysata how many hooya Soomaaliyeed ayaa sameeyay how many hooya Soomaaliyeed baa sameeyay boqolaal baa sameeyay ma ka dhacda Somali community inuu ninku uu fuulo ilmaha xaaskiisu dhashay yes way dhacda way ka dhacda wayna sameeyaan لكن لما أرمو بين قطع هو يدا صوبا نكتوال ويرنا سيدا هو يدا الله ويرنا هو يدا واحد لغو سميي إيو وحيالها آن ما أنت أركي وراقها آن أركي إن بابليكا كلا صوب وحي أركي مدحا إذن حنونا لما مد بين قطع هو يدا الصوماليين أرمتان كل عضو وكل عضو هو يوينك الصوماليين من صوتا oo anaga dhubaato maxamuud garaad axmed garre ku sameeyay ubax gabadheeda ina xasan shariif Soomaaliya dhan og tahay la leeyahay waa fanaan ha ubax waa business woman halkan ay ka shidanta hada aragtaan Soomaaliya anigayga idin la hadlay maanta anigayga idin la hadlay hada aragtaan nin noocaas difaacaya laba ka kufsigaas sameeyay أما إنه دمع سيء إنه سماه فيوتشر أو ديره سنت عالم كان لوجه حرام لوجه الله طب بنبأ أحمد كرهه سوى الدفاع وسوى عرر طب بنبأ أبح سوى الدفاع وسوى عرر ناجها أبح دفاع يا إسلام كقصة قرية كيف جاوا بيضة في الفاميلي خك أي قبائل بقى الموت كقصة من واحد جديد يعني تنو كلا إني بناك التماضو تنو كلا إني بناك التماضو أي جديدة ومدى الصوماليات قبل كم من الصوت ما كان عضا عرمتان يس ويكاد عضا ويسميا هو يوم بدن الصوماليات أيال وسميا قبل كم من الصوت الموضوع إنه فولين نك أي صحراء يستن الديوس كأها أو أي قرية هذه إذا لحظة قبل بأفكار وحي قتل والله وبالله وطلعه ما أنت وصومنا علامة وتأجيت وما عاشوراء يقبل يوم واحد أركي تعسل وعسل وبابسل يدو يربان النجار وحنقول معاكم ولا حاجة يدو عاد أنت هلا وأن كنت دولار سي وأن تلفون كربحية وأن بيعدوا عبتاني جوسي وحقد يقول معاكم ولا حاجة أنا كوي واتينا عرضي إلى هاي يقول عضا واحد يقول تري واحد سوق يجري هواية نيكي قبيبة يبكر الجبية هواية نيكي قبيبة أيا يبكر الجبية ده سوايبا نقول بيتري إن أنا نرش كده أو كوكين يخمري وحول بقاط كاسة يقول كلفتني هذا إن ده يقاسن سارواتين على يقول دعوة مالو والبيكلا على دكتين الدهيس لما مد مركان نقطة هو يلا الشيكتا لما الريموت هو يلا أرنت كل دعوة لما مد نقطة مد قرصة أو ترى إسك آمسو هبلاي يعني كم قسم أو إسناد شاد كموجي هي مد بناك صوتك سيدا ما مدانو كلا هي بناك صوتك سي محل لك ولا تهتم وسؤال إن هوس لقى حريقه أي تعال إن يسوي ديو هو يدي بناك صوتك سي وحي لك ولا ته وير عد إن لو قاضو أو مد شيخة هي مد جناح صدا هي مد كلا أنتوا ما يقول مياه سيدا هو يلا كل عضو وحال أركض ريبوت أي قرطي قبل كم من الدكة كيس الله حصار أو أن معك قبل ما كسر حصار ولا لا يا هاي ما مدن يدك واحد يكون سوي الحالة أنجلسة وإن ميل سيف ولا كيو نكان مركي الحري وحبس جلوت حابي وحال لو حكومة بيل أدي أدو تربنا سمبل يربان إذا تصيا أمريكا قفك مركي الحرو بيل قد بقفك كبيل بدني هاي وككرايم بدني هو أنا كعبدين بدني هاي كاس كذا مالكو قرط صاحب بيا تاس أجابة مال كو قرطة قفكو بيل بدني هاي وككرايم كاس وين هاي وأنا كخرش بدني وأنا كدم بعلوسيا بقول تضبعت يشن كل $1 ونت أحيان وصول دايا حتى معها 10% مركي العتي يقول نسكو جاي العتي اللي وصول دايا بالك واحد نقطة الشرقية تضبعت تكون $1 اللي وصول دايا يا بحيي أحد بحيي من دكان كلها كرامات أنا قانو
aniga isagana business la dhexmari jiray laakiin dib dambe dukaan uu leeyahay aanan u gali doonin business dambe oo aan leeyahayna aanu iliya baal saari doonin aad aan u ixtiraami jiray magaciisa iyo sawirkiisa iyo fiidiyoogiisa bulshada la wadaagi doona hadduusan faraha kala bixin arrimaha faamiliyada yaa kaloo ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey nin u dhashay isaguna beeshan haween oo taraagla oo la yaqaano magaaladan jooga 75,000 oo dollar baa la dhigay ninka ganacsadaha ee karameel dukaanka ku leh ayaa 75,000 oo dollar isagii ninka taraagla haween ay dhigeen banaanka ay soo dhigeen see markaa wax u dhacay okay okay labadaas raggaas ayaa soo daayay waxaa dhacday sidoo walaalo one second yaa kale oo ku jira taageerada ninkan kufsiga geystay ee gabadha yar u adeerkayo anigu ninka waan aqaanaa shakhsiyan ayaan u aqaanaa dukaanka ninkan ganacsadaha ee soo damintay aan idin leeyahay ee 75,000 dollar dhigay aan alaabada u geyn jiray ayuu joogi jiray sometimes isaga alaabada iga qaadi jiray si fiican baan u aqaanaa markaan magaciisa iyo wixiisa iyo dhan aan arkay يعني waxay ugu noqotay waxaan aad ula yaabay boqolkiiba 98 waa la xidhaya xabsigu aadaya maxkamad baa soo socota juuri baa la balamiyay jeeb baa ku dhacday xabsigu ku jiray 75,000 dollar baa lagu soo dhigay dawladdu qof iskama xidho taas taa ana idinka diiday Soomaaliya ama qayliya ama booda taa ana maanta idinka diiday maxaa kaloo jira markaa waxaa jira in masaajidka ku yaala karameel banaankiisa la yiraahdo Khalid bin Walid nimanka tabliiqa ee jooga oo ninkaan maalin walba isagoo qamiis dhex fadhiyo wata uu dhex fadhiyo oo maamadii la dulminayo waa masaajidka karameel banaankiisa ku yaala ee Khalid bin Walid la yiraahdo halkaas la isku gumay culimada dhex jooga iyagii baba dulminaya maalin walba arrimaha noocaasa ayaa wadanka ka dhaca magaalada joogno oo community-geena ka dhaca laba mid bayna hooyadu noqotaa hooyo Soomaaliyeed oo nin caruurteeda aan dhalinin uu qabo dhif naadir mid waxa jira ma sha Allah ilaahay uu ka dhigay sawjar saar yani ilaahay ka dhigay khayr qabe waa jira yes ma idin leeyahay waa wada xun yihiin laakiin hooyooyinka Soomaaliyeed way ku dhacdaa ana idin sheegay bartana soo fadhiista waxaan idin yiri Soomaaliyay Ahmed Garre ayaa waxa uu ku sameeyay gabadha yar ee Xasan Shariif dhale ee gabadha in adeerti u baxdashay wallahi wa billahi ta'ala uu ku sameeyay Jamal Ashura wallahi wa billahi ta'ala uu ku sameeyay nin la yaqaana dhale aabaheedan jecel ahludiin buu ahaa isagoo kale ma ahay islaam shaad halkan ka shaqeeyay fakay waxa soo dhig gabadha Soomaaliyeed waxa u dhimanaysaa horta islaam shaadkaani waa problemka ugu weyn ee ku dhacay faamiliyada habaarka ugu weyn ee ku dhacay hooyooyinka Soomaaliyeed waa islaam shaadka say isleedahay mid iska tiiri say isleedahay been sheeg yee ubadkeedu dulminaysa oo nafteedu dulminaysa oo maalkeedu dulminaysa oo iyadu is dulminaysa mid ka soo murugaysan been bay la soo galaysaa meesha halkan ay ka shidanta aqli inaysan dadku lahayn oo Soomaalidu daamiin ayaan idin tusaya markii aan idin sheegay ee ku yiri Ahmed Garre waxa uu sameeyay dadkii gabadha ay ka dhalatay ashraafeedo raadiya abtiyaasheeda la hadasho magaalada business place abtiyaasheeda iyo hooyadeed way ku kala dhinteen arinteed waxay dhaheen ma wada hadlaan salaanta sharciga u bixi walaalada iska qaadaan ma isweydiisay wiilal ganacsato magaalada jooga lacag ay waxa isku diray walaalada ما يسويديسه وحال يربان Snapchat يسوي beautiful family mid kala waxa u soo qoraysa
commenty waxay leedahay ha beautiful family kii qabay bay ka baqasaa in la yiraahdo he gabadh yar isagu aasi taasay ka baqasaa nin baa soo qaadanaya wuxuu soo qaday Ahmed Garre best kale isaga laftiisa damacsan ama uu sameyn doona ama uu ba sameeyay kiiska noocaan ugu danbay shacabka Soomaaliyeed aniga ha iigu imaanin been ha iigu imaanin turufatoranimo ha iigu imaanin cadaalad daro wallahi oo billahi oo tallaahi waxaan ka baqa Allah subhanahu wa ta'ala ay khalqay uumay iyo sharciga wadanka aan joogo oo aan si fiican u aqaan mar horaan xabsi gali lahaa la jabjabayn lahaa fara laga qaad lahaa magsha laga qaadi lahaa si fiican dawladda iyo anagu waa ixtiraamna wixii aan arkay inay waxun yihiin war citizen baanaha waa dhaartay waxay raadeen qabta waxaas xun hebel waxaas sameeyay hebel jaaji muslimad maaha diinta islaamka ayaa waxay ku faraysaa wixii xun aad aragtid inaad gudbiso sheegto anigu qof aan ka gabanaya Soomaaliyeed ma jirto nimanka fariista Khalid bin Walid masaajidka la yiraahdo karameel ku dhow dulmiga aawadaan joojiya wallahi oo billahi oo tallaahi waa tan islaamnimada ka baxa anoo halkan jooga inaan hooyo Soomaaliyeed oo gabadheedii dayuuskaasi farxumeeyay isku qabiil ma nihin aanan idinka yeelay inaan idinku fiirsado ganacsadaha karameel dukaanka kule horta aniga adigu way noo kala dhamaatay meel dambe business dambe leeyahay inaan ku keeno halka timamiya lagu arkaya habeenkii xalay ahaayay tagay waa inoo kala dhamaatay hal mid baan kaaga digaya waxa aad faraha kula jirto kala bax wallahi Cabdixakiim baa la yidhaa waxaan ka naxamin jirto you know sidii aan ay taqaan waxaan ka naxamin jirto intaan ku soo saaraya business kaagana dhulkaan gelinaya intaan ku soo saaraya business kan dhulkaan gelin waa kuma hadda ninka gabadha kufsaday waa kuma ninka gabadha kufsaday ii diyaar garooday أنا everybody is getting shot at. Everybody is getting shot at. Everybody is getting shot at. Focus. هاي كوسو علينا يا مركز. وكاسا وانيكا كوفية ده وانيكا سوى وكاسا قبيل كهران يدين كل شيء قاحة يدين ليس يقف أو حسوق قرية قبيل كنا لو ذاك والقبيل اسمه قبيل مني هن كان وطني gabadhuna waa dir ilmaha dhashay waa dir gabadha yar ku sameeyay ay tigina sheekhaal tahay baan u maleynaya gabadhu ay nin kale u dhashay sheekhaal misahabar gidib labada mid weeyaan isagu waa tunni nimanka masaajidka Khalid bin Walid jooga waa niman dulmigi ka qayb qaadanaya waa niman maamadii dulminaya waa niman maamadii weerar ku haya waa niman la maxaa u hadasha wariya waxaanoo kale wax loo adkeysan kara maaha wax la aqbali karana maaha wax la qaadan karana maaha uqsuma billahi alazim ilaahi nafta iga sheeban ku dhaartay ninka dambe aan ka maqlan magaaladaas isagoo maamada dulminaya wallahi wa billahi wa ta'ala ani isaga isku baabaan ninka ganacsadaha karameel dukaanka kule waxaan ku sheegay horta ani aad way noo kala dhamaatay laakiin arimaha afraha kula jid kala bax $75,000 ee dhigtayna adeer ka samir hooyada Soomaaliyeed ee arimahan ku dhacdo magaalada wadankan laba arimood bay u qaybsantaa ma inta dhahay hooyo geesiyada oo soo baxdo oo sheeka oo tiraahdo waa igu dhacdo hooyadaas markaa waxay la kulantaa darbo warqadda riboodka la qoray waxa ku qoran maamadan qof alla iyo qofkii arka
sawir bay ka qaadayaan ma naaka imaan soo soo waa ta gabadheeda la fuulay maxaa ugu caaysaa waay si bood garaayo u tag si bood garaayo u tag waxay riboodkii ku qoran waa in laga raray area because naftoodii ba halis ah halista ma fahamsan marka yani way isku tilmaamayaan waa taa suuq markay maras waa la sawiraya wixii la doonaa lagu sameynaya ummadda Soomaaliyeed anigu hore ayaan kiisyada noocaan idinku sheegay familygii Maxamuud Garaad gabadhii in adeertay u waxba samaysay arrintan khaatimo u taqaana Ahmed Garaa ku sameeyay waxa la yiri waa been islaam bay soo gashay Allah amcamira wallahi oo billahi talay gabadha Xasan Shariif uu ku sameeyay ana ku dhaaranaya wala wada oga abiyashada u qorata markaas la yiri no waa ku kala dhintay abiyashad iyo hooyada way ku kala dhintay waxa soo miiran ayaa maalin walba ka dhaxdhaca dadkeen oo la qariya mid kalena ogaada ilma qalbi dhagax qalb kulligii qalbada dhagax idin ah ilma yar oo 8 sano jira oo Mareykan ku dhashay been ma sheego may maqlasaan been ma sheego ilma yar oo Mareykan ku dhashay 8 jira been ma sheego runta aynu isku sheegno aynu runta isla wadaagno dad baa jaamacada 9 sano tan PhD ba dad u wataan ilmaha inay baaraan hal qof la wareysanaya no waxa wareysanaya almost 7 qof dawladda lacag badan ay gelinaysaa gaasada hooyada ayaa ku akhriday gabadha been way wax ay ku akhriday ma jirto oo fuulay uu sameeyay ninkani gabadha waxa ma gelin laakiin uu ku dul sigeystay shahwadiisa buu gacanta u shubay ilmaha yar inta soo wax wariyaha fiiri ilma yar oo 8 sano jira ilaahay baan idinku dhaarshay suu oranaya hooyo boonu ii shido hooyo waa la isfoorarinaya hooyo sidanu sameeyay hooyo candadii imuu gelin haye hooyo uu soo saar hooyo gacantu ku qabto hooyo shahwadu iska kala suuq int come on aqliga ka shaqaysiya aqligiina ka shaqaysiya aqligaan ka shaqaysiya ilaahay wuxuu idin siiyay ku garto ilmuhu ma samayn karo daalim ilaahay ka go'ay weeyaan ninkaas koofiyada weey digniina waxaan u dirayaa ragga dhinac taagan ee masaajidkan jooga sawirkiisana mar kale idinla wadaaga keer baan idin dhahay wuxuu dhacayaa dhaca wax uu samayn karaa iska waa ka waa kaasi mid baan idin sheegayaa nimanka tabliiqa ah ee masaajidka Khalid bin Walid banaankiisa kafeega ku cabba shaaha cadayska iyo wasradan hoos ka soo cun oo ku dheer dhacsada hooyo la dhibaateeyay haddaydan joojin masaajidkan isku iimaanayna inagu bartaynu iskugu soo galeynaa banaanka intaad wasaladu way soo cuntaan oo koob dheer caanaha soo qaadataan oo mid kale habaar ku dhacay oo ilmaheedii full standkiisii ku soo siisay aad soo liqliqdaan ayaa taa la dulmiyay ilmaheedii yaraa laga farxumeeyay aad leedihiin dulmi bay samaynaysaa المهم ugu dambayn waxaan idin sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ninkaas $75,000 baa lagu soo daayay ganacsade aanu saaxiibna oo aad u ixtiraami jiray laakiin maanta aan kala dhimanay oo karameel dukaan kule ayaana ka dhigay wixii maamada dulmi ku dhacay waa ku dhacay laakiin wixii dambe ana goob joog ahaanay ana soo taagan isku qabiil manihin isku dad manihin waxaan isku nahay ma jirto Soomaalinimo iyo hooyanimo iyo waalidnimo iyo ilmaha yar ee sawiga ah waxaas ku sameeyay wallahi sanbeen uga sheegin oo billahi oo tawla in ay sanbeen ka sheegin ana ma tidina taagan ana soo galay
ninka dambe Khalid bin Walid nimankiina joogay tabliiq aho edab yeeshaan idin dhahay diinta idinka maridi diinta waa inaga wada dhaxaysa dulmiga aad ku dulminaysaan masaakiintana joojiye mid kale Soomaaliga iga qor hadda aragtaan nin waxaas ugu soo eedeeyay nin taageeray waa laba mid waa inuu damacsan yahay inuu sameeyo iyo inuu hore u soo sameeyay inuu damacsan yahay inuu sameeyo iyo mid inuu hore u soo sameeyay hadda aragtaan naag taageeraysa ilmaheedii oo la kufsaday oo ninkeedii cadadiisa ula soo buxuu qariyay oo dhaas mid taageeraysa keep going sida Axmed Garre uu sameeyay waxay u soo qoraan commentiyada waa mid iyadu dayuus kale ku haysato teeda lagu sameeyaa teeda ay dhashay ayaa lagu sameeyaa marka nimankaas Khalid bin Walid taagan Khalid bin Walid nimankaas jooga ee tabliiq ah wallahi masaajidkan isku imaanana wax aan ka naxaaba iska yar wax aan ka naxo ninka ganacsadaha karameel dukaanka ku lahaayo ani adigana waa inoo kala dhamaatay business dambaana ku keenaynin haddaan kugu arko adoo talaabo dambe u qaaday hooyadaas oo dulminaya wallahi businesskaaga dhulka gelinaya ay billahi taala wax dambe oo ku keenayana halkaas bay tiba lagu arkaa xaraan bay ka tahay xaraanta ilaahay xariiray ka tahay baan ku dhahay inta lacag iga sameyn jirtay bishii waa sugta adna waa ogahay ilaahayna waa ogahay dadkuna ogeyn isaga laftiisu dukaanku joogi jiro waa ogaa ninka laftiisu alaabada aan ku keeni jiray qiimaheeda wuu ogaa haddii aad fariisan weydana oo aad maamada faraha kala bixido $7,700 baad ninkan ku soo beelood garaysay wallahi oo bilaw talaa businesska dhulka aniga meeshan gacan u qaado waa u qaaday meeshan dukaankan dabcan inaan baabiyo waa dhulka galaysa sawirkaagan soo saaraya Soomaaliya oo dhan baan ku keenaya nin ilma kufsaday ayuu taageeray ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed ee nimanka guryaha ku soo xareystayo hadday arintaadi ku dhacdo geesinimada hooyadan inuu geesiyad baan arkaa wallahi geesiyad baan u arkaa geesiyad dulmigaan dad badan ku baabay rabadaantii bay ahayd qoys dhan Soomaaliyeed saddex wiil oo walaalaha maalin la isku garab aasay Kansas maxaa keenay dulmi noocaan oo kale oo la qariya keenay dulmi noocaan oo kale oo la qariya keenay المهم ninka sawirkiisa Facebook eega soo saarayaan daabad war ariga sharci waxaan ku wiil korba u kaaje kor jeebkayga waa buuxa aqligayga waa buuxa qabiilkayga waa buuxa jeebka laan dheeranka ah oo aqliga laan dheeranka waliba jeebka la dheeran kamiyo waxaan ka dhahay saddex dabal laan dheeranka ah aqliga laan dheeranka iska faahad aniga nimankan saas isku qasana Mareykanka qabiilka laan dheeranka iska faahadee marka sawirkiisa soo saaray adeer gacali aniga soo dhaxo xataa sawirkaygu soo saaray kufsada tahay ka ku taageerana waa stupid aduna stupid baata suuqa kan ku arkan cadufan afka kaaga tufaya mana hadli kartid because jeel baa laga soo daay ma hadli kartid juuq ma oran kartid baan ku dhaa haddaan ku arko cadufan labadii dhood kaaga tufaya telefoonkaygan waa ballan hatta iga soo baxdo inaan ku duubo oo iraado waa kan ninkii gabadha hadda hadda aragtayga cararoy hadda aragtay janta fagax wax aan ka naxo ma jirto aad baan idin salaamaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan aniga runta kama gabado wax aan ka naxana iska yar wax aan u joojiyo iska yar aad baan idin salaamaya insha Allah reer Snapchat ma dhow baan idin la wadaagi doonaa barnaamijyada kale Snapchat wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan dadka sawirkiisa halkan soo saaraya Snapchat-kana waa soo gelinaya dayuuska kufsadaha ah aad baan idin salaamaya runta rabbi kama xishoodo Allah subhanahu wa ta'ala runta kama xishoodo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh